بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلكن واجنالك bahda TV haddaba magaalada muqdisho xaaladeedu waxa ay tahay mid markaasi si cakirmayso gaar ahaan shirarkii ka socday magaalada muqdisho kuwaasi oo looga arrinsanayay arrimaha caqabada ee ka hortaagan doorashada maanta magaalada muqdisho gaar ahaan xaruntii hore ee ciidanka cirka ee afisyooni waxa ku shiray dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana markaa looga hadlayay ajendayaal dhowr ah oo ay markaa ka mid yihiin wixii ka dhacay magaalada muqdisho 19 Febraayo iyo ajendaha guud ee shirka wada tashiga doorashooyinka qaranka dhinacyada ayaa saacado badan waxa uu markaa kulankooda qaatay inay markaa ka wada hadlaan caqabadaha ku horgudban arrinta doorashada dalka ha yeeshee labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa markaasi shirkaasi uu ka socon waayay sida xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abukar Dubbe uu shaaciyay dhinacyada ayaa iyaguna markaasi dhankooda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo war soo saaray ayaa waxa ay sheegeen in aysan waxba ka ogeyn shirka fashilmay balse waxa markaasi la ogeyn sida ay xaaladdu noqon doonto dhinacyada ayaa si toos ah waxa isugu qabteen ajendayaal badan oo ay ka mid yihiin in madaxweynuhu uu marka hore saxiixo warqad xilgaarsiin ah oo uu sidoo kale markaa ku cadeynayo in uu wareejiyo awoodda guud ee markaasi ammaanka dalka waxaana markaa taasi qorshaheedu labadaasi qorsho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guud ahaanba uu ka biyadiiday dhinaca kale xubnaha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta u muuqday kuwa iyagu markaasi dhankooda doonayay in uu markaasi fashilmo shirkaasi waxaana markii ugu horeysay shuruudooda ay sidoo kale ku soo bandhigeen in baarlamaanka golaha shacabka uu shaqo joojin markaasi sameeyo ilaa iyo inta laga helayo gole baarlamaan oo cusub sida xilligan aqalka sare xaaladda siyaasadda ee dalka ama shaqooyinkiisa uu noqdo mid la mid ah kan aqalka sare ha yeeshee madaxweynaha durbaba arrintaasi isaguna waa uu ka biyadiiday balse waxa uu madaxweynuhu tanaasulaad u sameeyay arrinta ka qaybgalida shirka ee dhinacyada markaasi ee midowga musharaxiinta mucaaradka iyo gudoomiyaasha labada aqal iyo sidoo kale in markaa uu wareejiyo uu aqbalay arrinta amniga doorashada oo markaa xukuumaddu sheegay in la hoosgeyn doono ha yeeshee dhinacyadaasi markii uu madaxweynuhu tanaasul ka muujiyay ayaa dhinacyada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu markaasi ku adkeysanaya ayaa dhankooda waxa ay markaa tanaasulaad ka muujiyeen arrinta baarlamaanka balse waxa ay ka biyadiideen in arrinta xilligan ee markaa warqadda xilgaarsiinta madaxweynuhu uu qoro balse taasina madaxweyne Farmaajo waa uu ka biyadiiday ha yeeshee dhinacyada ayaa shirkooda markaasi waxa uu ahaa mid guud ahaanba marka ay ku kala tageen oo ay dhinacyadu midba midka kale uu ku eedeynayo in markaa jiha iyo jiddiidba markaasi uu yahay waxaana markaa maamulada Puntland iyo Jubbaland loo aqoonsaday inay xilligan yihiin kuwa markaasi ay ka socon la'dahay arrinta doorashada dalka ha yeeshee dhinacyada ayaa markaasi shirkooda waxa ay markaa ku ballameen in waqti aan cayineen ay markaa isugu soo noqdaan shir kale balse wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abukar Dubbe ayaa markii uu warbaahinta la hadlay oo Puntland iyo Jubbaland uu ku eedeeyay in ay yihiin jid iyo jahadiid oo doorashada dalku ay markaa ka socon la'dahay waxa ay taasi markaa sii fogeysay isu imaatinkii dhinacyada waxaana markaa la ogeyn sida ay xaaladda noqon doonto xubnaha wakiilada ee baasha caalamka oo muddooyinkan dambe waday isu soo dhaweyn dhinacyada ahi ayaa markaasi aanu la ogeyn tallaabada xigta ay qaadi doonto waxaase markaa sidoo kale xilligan walaac laga muujinayaa xaaladda dhinaca markaasi arrinta siyaasadda oo xilligan caqabad weyn ay ka taagan tahay lama soo oga go'aanada ay xubnaha golaha wakiilada ee beesha caalamka oo muddooyinkan dambe si aad ah ugu mashquulsanaa arrinta siyaasadda dalka ay ka qaadan doonaan ha yeeshee dhowaan iyaga oo markaasi hadlay waxa ay booriyeen wada hadallada iyo waliba dadaalada dib u furidda wada hadalladaasi waxa ayna sheegeen inay markaa soo dhaweynayaan waxaase markaa dhowaan war ka soo baxay lagu sheegay in cid walba oo ay markaa ka socon weyso arrinta doorashada iyo sidoo kale fulinta heshiiskii 7
tobankii Sebtembar ay markaa cunaqabatayn saari doonaan. Ha yeeshee dhinacyada Puntland iyo Jubbaland oo markaa u muuqday in ay maanta iska fogeynayeen eedda uga timid dhinaca xukuumadda federaalka gaar ahaan Villa Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in aysan iyagu ogeyn meel uu ku fashilmay shirka, kaliya ay og yihiin in markaa la isugu soo noqon doono, dadaaladana ay halkooda ka sii socon doonaan. Ha yeeshee marka ay muuqatay in markaa xukuumaddu ay sheegtay in shirkaasi uu fashilmay ayaa waxa iyagu markaasi dhankooda istuseen, maadaama deegaanadii ay ka yimaadeen ay shaqooyin badan u taalla, la filayaa in maalmaha soo socda haddii ay waayaan kulamadii in ay hore usii socdaan ay dib ugu noqon doonaan magaalooyinkooda Garowe iyo sidoo kale Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa xilligan waxaa markaasi la soo warinayaa in shir albaabada u xiran yahay oo labadooda kaliya uu markaa uga socdo halka ay ka degan yihiin teendhada Afisiyoni, waxa ayna ka tashanayaan tallaabada maalinka berrito ah ay qaadi doonaan iyo sidoo kale tallaabooyinka ay ula hortagi doonaan dhinaca wakiilada beesha caalamka oo muddooyinkan dambe iyagu markaa ku cadaadinayay in ay heshiis ka gaaraan arrinta doorashada dalka. Ha yeeshee xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay kadib markii uu hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abukar Dube waxa ay noqotay mid markaa walaac badan ku muujiyaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa saacadihii aynu soo gudubnay waxa ay markaa sheegayeen in rajo wanaagsan oo uu shirku leeyahay oo qodobo badan markaasi la isku fahmay, sida ay warbaahinta gudaha saacadihii aynu ka soo gudubnay ay ka tabinaysay shirka dhinaca Afisiyoni. lama se oga waqtiga rasmiga ah dhinacyadan markaasi go'aanka rasmiga ah ay ka qaadan doonaan caqabada wali ku horgudban arrinta doorashada dalka oo xilligan noqotay arrimaha ugu waaweyn ee dowlad goboleedyada ay isku hayaan. Jubbaland iyo Puntland ayaa kaliya farmaajo xilligan waxay u arkaan mid ay kaga taqluusin karaan arrinta ah in uu markaa soo wareejiyo ammaanka guud ee dalka iyo sidoo kale in xilka laga qaado taliyaashii ka dambeeyay weerarkii 19 Febraayo ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu weeraray midowga musharaxiinta qayb ka mid ahi oo dibadbaxa markaasi iyagu soo qorsheeyay iyo shacab dhigaya dibadbax nabadeed, waxaana tani ay noqotay mid inta badan markaa xubnaha dowlad goboleedyada ay markaas soo adeegsanayaan xubnaha midowga musharaxiinta oo ay ugu waaweyn yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, labadii madaxweyne ee hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu markaa la aaminsan yahay in qodobkan ay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyagu u soo dhiibeen. Arrinta kale ee gobolada waqooyi oo xilligan Cabdi Xaashi oo isna markaa arrintiisu ay ku soo darayaan dowlad goboleedyadan ayaa iyaduna markaasi la rumaysan yahay in uu isagu gadaal ka soo riixaya. Xildhibaan Maxamed Salaad oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee sida weyn ugu soo horjeedo maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa la aaminsan yahay waxa uu markaasi shirka ku tilmaamay in ay dowlad goboleedyadaasi ay aad u mahadsan yihiin uu yiri ayna fashiliyeen qorsho kaliya xilligan madaxweyne Farmaajo uu doonayay mid mar kale isagu caano shubo, taasina ay sheegeen inay uga mahad celinayaan dowlad goboleedyada oo ka fikiray Puntland iyo Jubbaland aayaha mustaqbaleed ee danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri xildhibaan Maxamed Salaad oo qoraal kooban bartiisa Facebooka goorsii horeysa soo dhigay. lama se oga xaaladda dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya halka ay ku dambeyn doonto, waxayna xilligan u muuqataa jiid aan gacmo daalis lahayn.